assalaamu calaykum. maxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyey ee uu yidhaahdo saynisyahankii weynaa ee Albert Einstein? awood u yeelashadii carruurnimadiisii Einstein wuxuu ahaa qof aad yar hadla oo afgaaban. waalidiintiisa arrinkaa waxay ka qaadeen welwel weyn. ugu dambayntii hal habeen isagoo Albert Einstein miiska cashada fadhiya ee intuu aamusay ayuu yidhi, muruqu wuu kulul yahay. waalidkiisa ayaa waxay weyddiiyeen oo ay yidhaahdeen, Einsteinow, waxaadna weligaa hore u dhihin ayaad caawa tidhi. Einstein ayaa ku jawaabay, ilaa hadda wax waliba waa sidii la rabay. Albert Einstein isagoo 5 sano jira ayuu xanuunsaday. markii uu caafimaaday ayaa Einstein aabihiis waxa uu keenay kombiyuutar. taa ayaana la sheegaa in ay ka dambaysay xiisaynta xagga sayniska uu xiisaynayey Einstein. markay da'diisu ahayd 17 jir, Einstein wuxuu ka bartay iskuulka cilmiga farsamada, wuxuuna ka aflaxay maaddada xisaabta iyo sayniska. laakiin wuxuu ku dhacay maaddooyinka taariikhda iyo jiyogarafiga iyo guud ahaanba waxyaabaha la taxluuqa. sanadka markii uu ahaa 1915 Albert Einstein weligiis ma helin abaalmarinta Nobel ee la siiyo dadka dunida wax ku soo kordhiya ee la ixtiraamo. laakiin Einstein wuxuu ahaa mid bulshadiisa la leh xiriir dhow. xirnaanshaha dareenka wuxuu ahaa mid saamayn ku yeelatay sawirka laga aaminsan yahay. Albert Einstein wuxuu aad u jeclaan jiray heesaha. mar uu hadlay waxa uu yidhi, haddii aanan ahaan lahayn cilmi yaqaan, waxaan ahaan lahaa ama aan noqon lahaa fanaan. Albert Einstein wuxuu 30 sano ee ugu dambeeyey noloshiisa ku qaatay miro yaryar raadintooda si uu u helo aragti dhan walba ah. laakiin Albert Einstein weligiis kuma guulaysan in uu ku dhinto isagoo ka shaqaynaya ama ku dhex jira sayniska. Albert Einstein maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo maray kalkaaliyayaal caafimaad isagoo xanuunsanaya. hadal ayuuna ku yidhi, erayadan ugu dambeeya weligood lama ogaan doono. wuxuu ku yidhi af Jarmal. laakiin kalkaaliyayaasha caafimaadka ee uu la kulmay kuma hadlin af Jarmal, mana soo celin waxa uu yidhi. Albert Einstein wuxuu ku dhintay isagoo hurda cusbitaal ku yaal Princeton bishii Abriil 18 1955.